xukuumadda Somaliland ee uu garwadeenka ka ahaa madaxweynihii hore ee Somaliland Axmed Silaanyo ayaa wada hadallo lagu ballaarinayo dekedda Berbera la furatay shirkadda laga leeyahay waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta ee DP World 9kii bishii shanaad 2016 muddo ayaana u socday wada hadalka Somaliland ee dekedda Berbera iyo shirkadda DP World isfahan dheer oo dhexmaray kadib labada dhinac waa Somaliland iyo DP World kowdii bishii saddexaad 2017 ayaana ay si rasmi ah ula wareegtay dekedda Berbera shirkadda DP World waxaana ay shirkaddani sheegtay inay 442 milyan oo dollarka Mareykanka gelinayso dekedda Berbera sida ay ku cad heshiiskaasi ee ay wada galeen xukuumadda Somaliland iyo shirkaddaasi geesta kale heshiiska dekedda Berbera waxa dhinac socday heshiis kale kaasi oo ah dhismaha wadada Berbera corridor oo isku xidhaya waddanka Itoobiya iyo Somaliland oo isagana ay ku baxayso lacag gaaraysa 240 milyan oo dollarka Mareykanka haddaba isweydiinta waqtigani waxa ay tahay xagee ayay ku dambeeyeen heshiisyadaasi maxaase ka fulay muddadaasi halka sano iyo barka ah ee ay joogtay shirkadda DP World dekedda Berbera marka laga reebo shaqaalaha dekedda Berbera oo direys iyo qalab kala duwan ay u samaysay walow ay sheegeen in ay jiraan caqabado tiro badan oo ay la kulmaan shaqaalaha dekedda Berbera maadaama ay kulayl tahay dekedda Berbera waqtigani oo ay shaqeeyaan saacado badan xidhaana qalabkan oo aan loogu talagelin kulaylka geesta kale shaqaalaha dekedda Berbera iyo cabashooyin tiro badan oo ka soo baxaya ay sheegayaan inaan la siinin mushahar rasmi ah oo ay ku xisaabtamaan isla markaasina ay qaataan mushahar bilba ay wax qaataan guddidii Somaliland u qaabilsanayd wada hadallada shirkadda DP World waxa ay sheegeen in sanadka ugu horeeya ay bilaabayaan deked cusub oo 400 mitir dhererkeedu yahay xagee ayay martay shacabka reer Somaliland ayaa isha ku haya waqtiga rasmiga ah ee la bilaabayo heshiiskaasi kamida dhalintiisa xukuumadda Somaliland ee talada waddanka hadda haysa ayaa aan ilaa imika sheegin goorta ay bilaabayaan mashruucyadaasi ama heshiisyadaasi ka horeeyay ee uu galay madaxweynihii ka horeeyay madaxweynahani ee isla xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee SAB TV magaalada Hargeysa